hadlo self introduction tips markii aad sameynaysid isbarasho ama dadka aad isbaraysid waxyaabaha kaa caawinaya inaad fahamtid ayaa raba inaan kuu sheego kadibna aad samaysid ama muuqaal ahaan u samaysid ama cod ahaan u samaysid haddaba qaybta koowaad waxaa waaye introduction waa qaybtii aad ku furfuraysid hadalka halkan qaybtan maxaad ku sheegaysaa waxaad ku sheegaysaa magacaada aniga waxaa layidhaha heblaayo origin waxaan ka imid meeshaas iyo meeshaas ama meeshaan ku dhasho deganahay weligay joogay sanadkaasaan dhashay bishaas maalintaasaan dhashay iyo waxaa kaga hadli kartaa roolkaada ama shaqadaada work shaqadaada kaga hadli kartaa aniga waxaan ahay macalimad aniga waxaan ahay business woman aniga waxaa ahay housewife guri joogto aniga waxaa ahay fanaan waan haysaa aniga waxaan ahay dhakhtar hadba shaqadaada ama job titlekaada wuxuu yahay ayaad inoogu sheegaysaa qaybtan introductionka bilowga hore oo furfuraysid magacayga waxaa waaye heblaayo waxaan ka imid soomaaliya ama waxaan deganahay ama waxaan ku dhashay waddanka kenya halkaasaan ku barbaaray ilaa haddana joogaa waxaan dhashay sanadkaas hebel waxaanan ka shaqeeyaa macalinimo ama waxaan macalin shaqadeyda haddii adiga ardayta waxaad leedahay waxaan ahay arday halkaa shaqada meesha shaqada waxaa ku bedelaysaa roolkaada oo ardaynimada ah qaybtaas waa iga haysaa rajeynayaa saddexdan ayaa qaybtan kusoo koobaysaa qayb kalaa bilaabaysaa description aa lahaa halka description waxaa qeexidda adiga waxaad inoo faahfaahinaysaa qofka aad tahay qof noocee waaye xaliimo caasho cabdi cusmaan qof noocee yahay ma qof waxaa halkan aad ku qeexaysaa ama ku faahfaahinaysaa personalitygaada adiga shakhsiyadaada qofka aad tahay inoo sharaxaysaa haddaba waxyaabaha ama ereyada aad ku qeexaysid oo adjectiveska ah waa kuwana kind naxariis qof naxariis badan oo aad u naxariis badan friendly qof weji furan oo social ah oo qof walba la hadli karo oo saaxiibna ah oo la saaxiib lala noqon karo waa adi qof furfuran oo weji furfuran qof aan weji macbuus ahayn oo markii saa loo fiiriyoba bisinka raxmaanka ee loogu noqon leey maaha matid friendly baa tahay saasoo noo sheegtay helpful qof caawimaad badan waxaa loola jeedaa guriga ka bilaabaysaa waalidkaada caawinaysaa ilmaha caawinaysaa dariska caawina qof allaala qofkii u baahda caawimaadaada ayaa siinaysaa haddii lagu weydiistay haddaan la weydiis banaanka u baxay qof alaab culus ma kaarg waa caawina qof halku adagta waa caawina qof jidka ka lumay oo u baahan caawimaad waa caawinaysaa soo mar walba hata qof caawimaad badan kind baa tahay naxariis badan friendly laa tahay weji furfuran caawimaadba iyo soo an iyo waxyaaba erey kale oo descriptive words ama adjectives isku qeexaysaa waa marka aad taqaanid naftaada baratay ood garanaysid waay waxaadan ahayn iskuma sheegi kartid intaa kind tirahdid baa hadhowdina xaasinimadaada iyo waxaad kaasoo korbaxaysaa ya waa naxariis badan intaad tirahdid waa opposite ka dhow arka friendly ah inta igu tirahdid baa hadhow wejigaada ka carari doonaa soo waa marka aad taqaanid shakhsiyadaada ayaa sida noogu sheegaysaa waa haddaad taqaanid number 3 hobbies maxaa waaye waxyaabaha aad jeceshahay xilliga aad fariga tahay ama aada shaqaynin ama aada waxba baranaynin in aad samaysid oo ku raaxaysatid oo farxad ku dareentid ayaa la dhahaa hobbies